madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu qadka teleefanka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxay ka hadleen waxa laga yeelaya magaalada Gaza carabtii oo indhahooda shanta ah ay soo jeedaan ayaa la qaadayaa tallaabo kale oo yaab leh in muddo waxa la sugaya Trump sida uu uga falceliyo hadalka iyo go'aankii golaha wasiirada Israel ay qaateen ku saabsanaa arrimaha dib u weeraritaanka magaalada Gaza iyo waliba xaaladda magaaladaasi sidii loo soo gabagabayn karo waayadii ugu dambeysay dalal carbeed ayaa u ololeynaya magaaladaasi in la geeyo ciidamo caalami ah oo carabta ka socda dowladahaasi waxaa ka mid ahaa Masar laakiin Trump waxa uu leeyahay si kale oo dadka lagu soo dayn karo malaha anigoo qorshaha Netanyahu ma taageersanin laakiin haddana magaaladaasi in dagaalyahanada Falastiiniyiintu ay sii joodaan ma aqbalayo tallaabada ay hadda qaadayaan Israa'iilna waa mid bogaadin leh ayuu yiri taas oo dadku hadda si weyn ula ashqaraareen warbixin ay ka qorayaan warbaahinta adduunka ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka saaka khiyaarta in la socotay marka waxaasi oo dhan laga hadlayo ee la leeyahay dadkaasi sidee loo badbaadiyaa barnaamijka xalay saqdixaan sii dayneen madaxweynaha Turkiga oo dhaaranaya haddana dhaxal sugaha waddanka boqortooyada Sacuudiga ahna ra'iisul wasaaraha waddankaasi waxa uu teleefanka kula hadlay Zelensky oo ah madaxweynaha waddanka Ukraine waxa uu leeyahay haddii aan nahay Sacuudiga iyo dowladda boqortooyadu waxaynu ka shaqayn doonaa sidii aan idin heshiisin lahayn idinka iyo waliba Ukraine iyo dalka la yiraahdo Ruushka oo xaaladdu ay ka taagan tahay markay meeshan oo kala joogto ciyaalku waxay yiraahdaan dib baan ku celinayaa noloshaadii carruurnimada mararka qaar tusaalooyinka iyo dhacdooyinku waxay dib kugu xiraan noloshaadii carruurnimada waxyaabo aad ku ciyaari jirteen oo marka aad timaado waaqaca nolosha aad si sax ah u arki karayso hadalka Sacuudiga waxay u eg tahay aabbo ninka yar iga celi ka weynaan iska celin doonaay sababtan waxay tahay waxa laga hadlayaa bariga dhexe waxa laga hadlayaa Qudus waxa laga hadlayaa Gaza waxa laga hadlayaa badbaadada shacabka carabta Sacuudiga meeshii la raba arrimahaasi inuu u ololeeyo haddana Salmaan waxa uu leeyahay waxaan heshiisinaynaa Ukraine iyo Ruushka iyadoo la filayo toddobaadyada soo socda inay kulan yeeshaan Putin iyo Trump oo arrintaasi laga hadlay qorsheedana meel yaallo Ruushka gobol loo gooyay wadamada Yurubna la yiri Mareykanka la hadlaynaa idinku waxa lagu soo taliyaa idin keeni doonaa meel fadhiista ayaa Sacuudigu hadda boos cariirsanaya wax kale oo lagu tilmaami karo Sacuudiga aan boos cariirsada ahayn ma jiraan warbaan idinka leeyahay arrintaasi oo aan barnaamijka idinkaga sheegi doonaa intaasi waxa raaci doona dalka Jarmalka waxay soo bandhigeen diyaarado aad u fara badan oo bilyan dollar ku kacaya oo dowladda Ruushka iyo shirkado ganacsi oo madax bannaan oo Ruushiyaan ay leeyihiin oo madaarada waaweyn ee waddanka Jarmalka yaala waxay yiraahdeen talaabadan waxay ka dhigan tahay in Ruushku uu dareemayo xanuun fara badan oo dhaqaale mar haddii diyaaradiisi ay garoomadeen iska yaalaan inana aan dhaqan gelinay go'aamadii cunaqabataynta Yurub ay soo saareen wasaaradda gaadiidka Jarmalku waxay leedahay tani waxaynu ku tusaynaa wadamada Yurub inay naga go'an tahay talaabo kasta oo Ruushka ka dhana oo cunaqabatayntaasi lagu hirgelinayo akhyaarteena la socota subax wanaagsan ayaan idin leenahay waa tabinteena cusub ee saaka waxaan filayaa nabad qab iyo wanaag inaad ku wada kacdeen waa 12 bisha Agoosto sanadka waa 2025 meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay soo dhawaada oo ku soo biirayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay xaaladda iyo isbedelada cusub ee gobolka bariga dhexe ka taagan iyo waliba qorshaha ra'iisul wasaare Netanyahu uu ku doonayo inuu dib weerar ugu qaado magaalada go'doonsan ee Gaza iyo waliba sida uu doonayo inuu magaaladaasi guud ahaanba ku qabsado Trump oo hadalkiisa laga dareemayo labac iyo laba wajiilayn sida khubaradu ay ku faaqadayaanba waxa uu leeyahay marka hore anigu ma taageersani Netanyahu iyo qorshooyinkiisa iyo tallaabooyinka uu qorsheynayo iyo xaaladda halkaasi ka taagan laakiin inagu waxaynu doonaynaa buu yiri in marka hore ujeedadu ay tahay in aynan aqbali karin oo aan ogolaan karin oo aysan naga dhaadhici karin in magaaladaasi kooxaha hubaysan ee gobonnimo dirarka ku jooga halkaasi ee Falastiiniyiintu ay ka dagaalamaan ilaa buu yiri isbeddello waaweyn halkaasi laga helo
telefishinka alcarabiya ee sacuudiga oo arrintan xiganaya waxa uu leeyahay waa in israa'iil loo ogolaado tallaabada xigta annaga waxaan qabaa buu leeyahay waa Trump in aysan sii joogi karin magaaladaasi kooxaha diriraya ee qatarta ku noqonaya amniga sidoo kale Trump waxa uu fariin xoogan u diray baa layiri shacabka iyo madaxda isagoo yiri talo waa madaxde waase shacabka halkan aad ku ogaan doontaa waxa uu leeyahay hal fariin oo kaliya ayaan dirayaa xusuusta 7 Oktoobar ayuu yiri taasoo ula jeeda weerarkii ay kooxda Xamaas ku qaaday bishii Oktoobar 7 2023 ee horseeday dagaalka hadda socda in uu sii gugco oo waliba xaaladiisu ay ka sii darto meel adagna ay gaarto ilaa iyo 60,000 oo qof oo Falastiini halkaas ay ku dhimatay in ka badan 150,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale Netanyahu iyo Trump ayaa qadka teleefanka ku wada hadlay sida telefishinka alcarabiya uu saaka baahiyay waxa la yiri wada hadallada ayaa la xiriiray xaaladda magaaladaasi Netanyahu waxay u sheegeen labada hogaamiye baa la yiri inay isla soo qaadeen sida loo xakameyn karo goobaha kooxuhu ay ka dirirayaan hubka sida isla markaana loo soo afjari lahaa dagaalka qorshaha Netanyahu ayaa waxa uu yahay in weerar saf ballaarana oo cagmarina lagu qaado magaaladaasi isla markaana kooxaha hubaysan ee Falastiiniga guud ahaanba laga saaro gudaha magaalada dadkana la daadgureeyo oo la geeyo meelo kale oo ka baxsan halkaasina ay Israa'iil si guud u maamusho dhinaca kale Trump inkastoo uusan si cad u taageerin baa la yiri weerarka cusub ee Israa'iil haddana waxa uu muuqdaa in uu raacsan yahay Netanyahu uu qabay in Xamaas cadaadis military oo ballaaran la saaro arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo carabtu wajagabax ay la kulmayaan cunaqabatayn iyo cambaareen xoog leh ayay durbaba wajaheen Israa'iil Jarmalka ayaa ka jirta hubkii ay geen jireen halkaasi oo ay ku taageeri jireen halka dawlado fara badan oo reer galbeed iyo kuwa carbeed iyo kuwa kaleba ay si weyn uga soo horjeesteen oo ay ku tilmaameen gudnimo gaajaysiin iyo waliba go'doomin magaaladaasi in aysan qaadan karin haddaba Trump iyo Netanyahu ma la dhihi karaa hoos bay iska ogaayeen aragtidaada qaybta hoose aad nagula wadaagi kartaa haddii aan ku sii socdo wararka kale aan saaka idin hayo marka la fiiriyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ahna dhaxal sugaha wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee qasriga Yamaama ayaa soo daayay war ilaa iyo hadda dawlado fara badan ay la yaabeen dad taxliilayaal ay isweydiinayaan qaabka loo dhigayo ilaa iyo hadda wax kale lagu fasiro la waayay kadib markii la yiri Sacuudiga boos diblomaasiyadeed oo cariirsado oo kaliya ayuu halkan ka raadinayaa gelinkii dambe ee shalay ayaa tilmaamaya inay qadka teleefanka ku wada hadleen dhaxal sugaha wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna ra'iisul wasaaraha wadankaasi Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha dalka Ukraine ee aafada dagaalada iyo mashaqooyinka adag wadankiisa wajahaya haatan la qorsheynayo ilaa iyo 3 gobol in ay Ruushka si xoog ah uga qaataan Vladimir Zelensky intii lagu guda jiray wada hadalka oo qadka teleefanka ah ayaa la yiri waxa la isla soo qaaday xaaladda dagaal iyo mashaakilka ka taagan wadanka Ukraine dhinacyadu waxay isla faaqideen sidii colaadaasi loo soo gabagabeyn lahaa Sacuudiga waxa uu leeyahay inagu waxaan aad u taageeraynaa in dagaalka la soo gabagabeeyo oo waliba qorshaha la isla qaadanayo uu yahay nabad iyo xabad joojin rasmiya oo dhaqan gasha Amir Mohammed bin Salman ayaa mar kale cadeeyay baa la yiri mowqifka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee taageerada dadaalada caalamiga ah ee nabadda iyo fududeynta wada hadallada dhinacyada isku haya halkaasi waxana uu hoosta ka xariiqay baa la yiri in Sacuudiga ay sii wadi doonaan doorkooda dhexdhexaadinta iyo dhiirigelinta wada xaajoodka ku salaysan xushmada iyo dhexdhexaadnimada sida lagu yiri warka ka soo baxay qasriga Yamaama ee dalka Sacuudiga dhinaciisa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa la leeyahay waxa uu amiirka iyo dawladda iyo shacabka wadankaasi barakaysan ee Sacuudiga uga mahad celiyo kaalintooda muuqata ee ku aadan xasiloonida iyo nabadda ay la doonayaan wadanka Ukraine haddii aan qodobkaasi halkaasi ku dhaafana dawladda Jarmalka ayaa ku faantay in ay joojiso baa la yiri diyaarado dawladda Jarmalku ay lahayd oo wadankeeda joogay isla markaana wali yaala garoomada diyaaradaha ee dalkaasi Jarmalka wasaaradda gaadiidka ee Jarmalka ayaa ku dhawaaqday in ay dhowr diyaaradood oo ganacsi oo laga leeyahay dalka Ruushka ay wali ku go'doonsan yihiin
garoomo kala duwan oo ku yaala gudaha Jarmalka tan iyo 28 Febraayo ee sanadkii 2022 laga soo tiriyo 4 maalmood kadib markii uu bilowdo baa la yiri dagaalka Ruushka uu Ukraine ku qaaday sababta hakadka ayay wasaaraddu si weyn u macnaysay wasaaraddu waxay sheegtay in mamnuucida duulimaadka diyaaradahaasi ay si buuxda ula jaan qaadayaan ama ula jaan qaadayaan baa la yiri xeerarka midowga Yurub gaar ahaan kuwa la xiriira cunaqabataynta la saaray Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine diyaaradaha ayaa waxay kala yihiin 3 diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ah oo loo yaqaan Antonov AN-124 waxay taallaa baa la yiri garoon ku yaala magaalo dhacdo oo Hele la yiraahdo bariga Jarmalka diyaaradda Boeing 737 oo laga leeyahay baa la yiri shirkadda ay leedahay Atran la yiraahdo taasi waxay ku sugan tahay garoonka diyaaradaha ee Bonn diyaarado kale oo fara badan ayaa lagu soo waramayaa oo ay leedahay shirkadda Utia in iyana yaalaan garoonka Bonn diyaarad kale oo ah Boeing 747 oo ay leedahay shirkad Ruush ah oo fadhigeedu yahay UK ayaa waxay taallaa garoonka Frankfurt waxa la sheegay shirkaddan ayaa hakisay howlaha 2022 waxaana la sheegay in si rasmi ay u xirtay kadib cunaqabatayntii ay la kulantay diyaaradda la yiraahdo Airbus 320 oo la kireeyo isla markaana ku sugan baa la yiri garoonka Munich waxaana iska leh shirkad Ruushku leedahay la yiraahdo Irish Russian waxaana la sheegay in shirkaddu ay bixisay ilaa ay ama 470,000 oo euro si diyaaraddaasi loogu ogolaado inay u guurto baa la yiri Greega hase ahaatee arrintaasi wasaaraddu waa ay ka diiday hadda waxay u muuqataa dalka Jarmalka inuu noqonayo wadanka ugu adag marka laga soo tago wadanka Faransiiska ee sida weyn ula xisaabtamaya dawladda uu hogaamiyo Vladimir Putin subax wanaagsan khiyaarey intaas ayaan ku gabagabeynayaa qaybtan iyo tabinteena ugu horeysa ee saaka tan iyo kulanti dambe waa Cabdi Casiis Barrow oo idin leh nabadgelyo